السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قالي قامل البوت شوكتان خير بدن أيا إدين رجينيا دمانتين خير بدن أيا إدين رجينيا سودا وهذا يعني دلله هذا ثورين ولا شوكتون ما هتصنطاي هذا نوع ماتين السودا وأيام كلنا هاي دمانتين بسودا وهذا طلعوا عزبتا سبسكرايب نو صار هذا ثورين ولا شوكتين وما هتصنطاي نلس تشوك أصحابتي إذا قالي ما أنت شكل عنك شكين إنه وما أنت أن إدين هيا وحواي horta qisadan waxaa ka sheekaysay oo sheegtay gabadhii ay ku dhacday. Gabadhani waxay tiri muddo 10 sano kadib ayuu waxay tiri ninkayga damcay inuu guursado. 10 sano markaan adigu wada joogno xitaa caruur badanna ilaahayna siiyey ayuu waxay tiri ninkii damcay inuu guursado. marka ninku waxay tiri gabdho badan buu shukaansanayay oo xiriir la sameeyay oo shukaansanayay shukaansi uu kala dhexeeyay waxay tiri ha godadleeyo iska shukaansado wuxuu shukaansigii wadaba maalin maalmaha kamid gabadh ay ku heshiiyeen inay isguursadaan deetana waxay tiri anigu arrinta waan la socday horta bilow ilaa dhamaad waan la socday laakiin weligeyba waxay tiri la igama maqlin bay tiri gabadh baad shukaansataa iyo masayr iyo waxay tiri dee shaki keena weligeyba la igama maqlin teeda kale waxay tiri ninka familkiisana iskuma aanaa fiicnayn oo adiga wax ka dhaxeeyayba maynaan maamada iyo gabdhaha dumaashiyadeeda mayna isku fiicnaan deetana waxay tiri maalintii dambe ninkii arooskii uu galayay oo maalintii aroosku dhacayay ah oo meherku dhacayay ayuu waxay tiri dee beriyo kale aroos galayaa moogtahay buu soo adeegtay oo waxay tiri alaab cusub soo gatay dhar cusub soo gatay ninkii waa soo shopping garaystay aniguna waxay tiri arrintii waan ogahay deetana ana waan ka aamusay shib baan ka idhi markaan waxay tiri shibka iri waagi markuu bariyay in waxay tiri quraac baa u sameeyay uu labistay waxay tiri farxadda ninka waxay tiri farxadda hadda ma malayn kartid ma soo qiyaasi kartid xitaa farxadiisa deetana uu soo booday wuxuu yiri kambanigan ka shaqaynaynay baa xalfadi ka jirtaayo xalfadii baan soo diyaarinaya anigu waxay tiri waan ka aamusayo dee waan ogahay tiri inuu aroos galayo maalinta meherku dhacayba ay tahay oo wax kastaba dee soo dhammaadeen deetana waxay tiri shibaan iska yidhi wuu soo diyaariyey wuu labistay saacaddii unbaan aayar qaaday waxay tiri musqusha unbaan waxay tiri musqushii oo qolka jiifka unbaan aayar waxay tiri dhexdhigay deetana ninkii markuu labistay isdiyaariyey saacaddii buu raadiyey wuu waayey ayay tiri markii uu waayey saacaddii uu sidii ku waayey uu cabbaar raadiyey uu saacaddaydii maartay oo soodigii musqusha la gelayay unbaan anibay tiri deetana musqushii buu galay markuu galay saacadii adigu xidho muraayadii wax isku fiiriyay bay albaabku qabato loog bay ku rogtay gebigiisiba musqushi bay ku xidhay deetana waxay tiri musqushi markaan ku xidhay baan aayar iska baxay oo gurigii kalena aayar baan ku xidhay qolkii jiifkana waan ku xidhay waxay tiri waan iska baxay waxay tiri shaqadaydii baan dee iska qabsaday gurigii baan hawshaydii iyo danaheedii kala ka badan baan iska qabsaday kolba waxay tiri qof ordaya unbaa ii imaaday kolba nin ordayay ninkii walaalay xaguu aaday ninkii maaragtay soo ku baxay umaan dhaabaytay soo ku mar hore tegay adigu sidii laysu daba ordayay waqtigii arooska wuu dhammaaday ee meherkii waqtigu dhici lahaa baa waqtigii ka dhacay deetana waxay tiri hooyadiis baa ii imaatay maamadii sadoxday ahayd baa waxay tiri ii imaatay oo qaylay afka furto waxay tiri naayaa ma wiilkaygi miyaa dishay naa xageed geysay naa anigi waxay tiri waan iska aamusay soo ku baxay umaan dhahaabay tiri deetana gabadhaasi gabadh aad u caqli badan bay ahayd markii dambe waxay tiri hooyadii aad u qaylisa waxay tiri ma arooskaad ogaatay ma wiilkaygi xageed geysay aduu waqtigii markuu dhacay wax dadkii isdaba yaacaanba bay ka furtay markay gurigii ka furtay ninkii ababa dee waa cararay wuxuu is yidhi mindhaa tan iyadoo waxaasoo dhan og aamusnayd dee miyay kuu daahi wuu cararay muddo kadib adigu gabadha iyo ninkii sidii baa haddana lagu heshiisiiyey iyadu carruurteedii heerkeediiba iska sii haysatay isagii wuu soo laabtay waa la soo celiyey heerkii dib bay u heshiiyeen gabadhaasi hadda saasay arooskii ku baajisay saas ayaana waxay tiri hadda anigiiyo wadaadkii ku wada joognaa gabadha horta cilmi badan baa laga faa'iidayaa aniga ra'yi ahaantayda taan ra'yi ku darsa cilmi badan baa laga faa'iidayaayo gabdhaha intay masayraan maxaa dhihi jiray ninka gubaya kuwa iska furaya
kuwa maxaa la dhihi jiray dagaalku ka dhacayo intaba sheeko ka dhib yar baa imaatay oo intaad arrinta dhan la socoto bad qufilka guriga dhab ku siinaysaa furaha tuur haddaad rabto hala jabiye marka dambe guriga haddaada sheeginba cididee inuu guriga ku jiro ma ogaanaysa moogta furaha tuura intaad ku xidhin kulligood markaad ogaateen nooraas ku dhacay intaad ku xidhaan furaha tuura intaasna waa kaftan asxaabtayda qaaliga ah khayr badan baa idiin rajaynayaa sheekadayna halkaas ayay ku eg tahay horta gabadh aad u caqli badanna way ahayd wixii fikirkaaga commentiga nagula wadaag aadna waan idiin salaamayaa soo dhawaada ayaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu